sidoo kale waxa muhiim ah waxa weeyaan inaan ogaano magacan Ilaahay subhanahu wa ta'ala al-Kaafi ah waxa Ilaahay ku weydiisanaysaa Ilaahay inuu ka kaafiyo sharta ay kula maagan yihiin hebel iyo hebel iyo hebel cid ku dulmis waxa leedahay Allahumma kfini sharra fulan wa fulan wa fulan wa fulan عدي كدل مسي أو ظلمي كوهيسة إلهي بعد كوي دي سنة يسمى عساس إله أديك كافي جاهن كوي دي سنة يجا كافي سد شرط هبل يشرط هبل يشرط هبل وإلما جيه إلى الدنيا ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف من رجل أو من قوم هادو كبق قف نبي أو إنه شر صوّد أو أجاد أما قاموا كعب صلاة نبي وحو كد عيسى صلى الله عليه وسلم اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم دعاء ذا النبي وأخرج قالها الضو كعب صلاة دعاء ذا النبي كهر بيجر إله شرته ذا كل إله شرته ذا كام مجنكنا إله سبحانه وتعالى نجد دفاع ونجد كافي دعاء ذا النبي كد عيسى صلى الله عليه وسلم ثقة إلهي قفك وكقبه أيانا وحي كينيسا dhibaatooyin badan oo lala doonahayo haduu ducadaas Ilaahay ku baryo Ilaahay inuu kaga kaafiyo nabigeena calayhi salaatu wassalaam asagoo geed hoostii jiifa saxaabadiina ka kala tageen ayaa nin reer baadiyaha u yimid oo gaal ah seefta nabiga geedka saaran buu ka qaatay galka ayuu kala baxay waa la dul istaag markaas wuxuu ku yiri man yamna'uka minni maanta yaaga ka difaacahay seeftaadi ana haysta waan ku dul taaganahay cid kula joogtaa ma ay jirto yaaga ka mancinahay markaas nabigu yiri Allah mar labaad buu ku celi yaaga ka mancinahaya Allah mar saddexaad buu ku celi Allah seeftii baa gacantiisa ka soo dhacday markay seeftii ka soo dhacday ayaa nabigu qaato yiri man yamna'uka minni aniga yaaga ka mancinahay markaas yiri waxa iga ka mancinahay ma jira maxaa yeelay asagu Ilaahay ma aaminsana Ilaahayna ma rumaysna laakiin nabiga sallallahu alayhi wa sallam qismeel dheer oo kamaal ayuu ka gaaray thiqada iyo kalsoonida Ilaahay ku kalsoon yahay qofka muuminka waxa la rabaa isagoo asbaabta la iimaanaya masna inuu Ilaahay tala saarto oo qalbigiisa mar walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu tala saarto marnaba aysan qalbigiisa ka bixin waxyaalaha yar yar ka asbaabta ah oo haysto inuu san ku kadsoomin baa la doonay wuxuuna barayaa magacaan oo kale in qofka muuminka ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ogaado oo rumeeyo inay soo martay mu'miniinta xaalado kala duwan oo ay khatar galeen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka kaafiye sharta a'daad mawaaqif kala duwan oo quraanku inoo sheegay oo muuminiintu ciriiri ay galeen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaafiye waxaana khayru mithaal noo ah qisadii badr cadadkooda muslimiinta intuu leeka iyo intii gaaladu ay leekaayeen muuminiinta oo aan dagaal ku soo talagelin iyo gaaladii oo dagaal ku soo talagalay muuminiinta oo deegaankoodii ka soo fogaaday meel goodoonana jooga dhinac kastana gaala ay uga hareeraysan tahay wax u soo maciinayaana ayna jirin Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaaladda ciriiriga markay galeen ayaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam in badan markuu Ilaahay bariyay ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay id taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaa'ikati munzalin miyayna idinku filnay in Ilaahay idin soo diro gurmad malaa'ig ah 3,000 oo la soo dejinayo oo ciidana Ilaahay inuu soo diro miyayna idinku filnay bal fiiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala ciriiriga markay galeen sidaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala sharti a'daadooda uga kaafi bal waxaad eegtaa ghazwatul ahzab oo 10,000 oo gaala isku soo bahaysteen inay muslimiinta jirid gooyaan oo munaafiqnimadoodii la soo baxeen oo xaaladii khatar ay gashay oo halka kalxamaha dhuuntii naftii ay soo gaartay oo ciriiri iyo cabsi weyn la dareemay oo xaalad adag lagu jiray Ilaahay subhanahu wa ta'ala markay Ilaahay bariyeen oo Ilaahay ay ku kalsoonaadeen oo waxay maciin ka sugayeen alla kaligiis u ahaa
أي إلهي سبحانه وتعالى أعدادودي أردن إلهي جبي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا إلهي بلنك مرنا مكبح ماي قوة إلهي عزك إلهي يأود إلهينا الدقيقة كتي ساعات كستوى كل شوكتا أديك أيها وحويان يقينت إلهي آد يقين سنتهي هي الثقة إلهي آد كقبتد أيها ضعيفة أوه سعيد بلو فرسو في صحيح البخاري عبد الله بن عباس وحيري حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة داس قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار مركي ضبك اللي ذي أيها النبي إبراهيم يري حسبي الله ونعم الوكيل markay gaaladu isku soo bahaysteen ayaa ku yiraahday nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ay saxaabadii hasbunallahu wa ni'mal wakiil ilaahina waa ku xifdiye subhanahu wa ta'ala waana ku badbaadi waana kaga kaafi adduunkan koonka ilaahay baa maamula insaankan daciifka maamulka uu hayo iyo sharta uu kula doonayo iyo tadbiirta uu maleegahayo waa daciif waxaa korkiisa ka maamulahaya awoodda ilaahay iyo tadbiirta ilaahay ayaynu kulligeen ku soconaa maamulka ilaahay ma haysta walidaalika bal fiiri النار لم تحرق إبراهيم عليه السلام ضبك اللي قريد النبي إبراهيم وإنتاس أو مدة الشدة هي إبراهيم موسى قبين يا دمي إلهي سبحانه وتعالى قل يا النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ولا قديش بدي وينيد أو فرعون لقضي عيد مديسي موسى عليه السلام ونحمر كما غرقومي من أيسن لقي بلو فيرسو الحوت لم يأكل يونس عليه السلام ملايقي وينا أو بدا قنت هذا يونس لقي مونا نعني من التابنين تدبير بني آدم كو أي سمين أيان يوحى أي ملايقيان إيا تلذذ وحي ركوبا يينكم مرقلين يينا همكو قلين إلهي سبحانه وتعالى كحرا وأساق كلية توب وأساق كلية بري وأساق أرمها أبندقو وقلبقا ظروفها إيا حوائجتا إيا نباتوين كهيستا إلهي سبحانه وتعالى أتضرع وأنا أقول لك أنت سوك عدد إلهي سبحانه وتعالى واكو كافنا إياه وأنا حقيقة أساق إلهي الكافية أليس الله بكاف عبده ميونا إلهي أهين مدى دون كيسا كفين عدة أكبقيس إلهي كما قنك عليسك كهيستا إلهي نكاقا هذا ويدس إلهي سبحانه وتعالى شر الله أنت كويس إلهي عذرك إنه كافي وكاقاد إلهي ويديس بريهاس يتوق مداس وحويان ووح وقال السنة وأنا هيسم قفك مؤمن كهوبك أو هيستو كد قال لما يا والدعاء إيا بريها يتوق مدا يتضرع إلهي أموتشناي يينكم رجل قالوا وح يا هيستان يا وحي أود شيئا أيان يا وحى أخبارت أدمغليسي قفك مؤمن كما دام إلهي أرمي سيهي فالله وحده هو الكافي جل وعلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا شرهم وشر الظالمين جميعا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين